dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xoogga saaraysa dhismaha ciidamada qalabka sida ururka 89aad saadka ciidanka xoogga dalka waxaa la siiyay tababar adag oo u socday muddo 3 bilood ah madaxa hoggaanka saadka ciidanka xoogga dalka General Maxamed Maxamuud Garabey waxa uu sharaxay tababarka nuucu ahaa iyo waxyaabaha laga filanayo ururka 89aad ee ciidanka 3 bilood ama 9 cashay la soo dhaafay oo soo maray ku saabsanaa asaasiyadii amartay ee ahaa in ciidamada xeriyahooda lagu tababaro oo ay qaataan asaasiyadii dishibliinkii xerajoogii iyo jimicsigii iyo instruksiyoonkii iyo hanaankii xerajoogaba in amartay annagoo markaas tixraacayna fulideynana ciidanka saadka ilaalada hoggaanka saadka ururka 89aad ee saadka uu nasiib u yeeshay isagoo kaashanaya hoggaanka tababarka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed programada iyo barnaamijyada degsan annagoo kaashanayna waxaan soo qaadanay barnaamijkii tababarada ururada hoostaga talisada gaarka ayaa loo jeediyay inay u tafaxitaan sidii ay ciidamada u siin lahaayeen tababaro aqoontooda iyo awoodooda askarnimo lagu dhisayo taliska guud ee ciidamada xoogga oo kula xisaabtami doonaa waxaana waajib ku noqonaysaa hoggaamada ururada madax bannaan ee taliska xamar degan in tababaradan oo kale ay fuliyaan sababtoo ah ayagu kuma jiraan infaroodka kuma jiraan ciidankan aasaarkiisa hadda waxaa tababarkan dhamaystay hal horeyna koorsooyin badan oo macal qeybaha kala soo qayb galeen sida hadda idinku tusaaya meeshaan ayay mataqaana ay u soo qaateen runtii meesha aan hadda maanta marayno waxaan dhihi karnaa waa guul iyadoo weli howlgalkii iyo dagaalkii uu socdo haddana tababarkii lagu dhex wado aad iyo aad bay dadaal aada u fara badan tahay ay saraakiishu sameeyeen waxaan rabnaa markaa tababar marka la yidhaahdo waa qaybaha ugu muhiimsana ciidanka askarigu tababarka iyo logistikada waxaa la yidhahdaa waa waxa aasaasiga oo ah in tababar la siiyo raashin iyo cunana uu helo ciidanka hadda tababarka halkaan ku fulinayayna aada u wanaagsanaayeen waxa uu la dardaarmay ciidamadii tababarka la siiyey kuna ammaanay dhabar adeegii ay muujiyeen taliyaha ciidanka xoogga dalka Sareegaas Cabdiweli Jaamac Xuseen Gorod isagoona si gaar ah ugu ammaanay macallimiintii tababarka bixisay tababarku muxuu ahaa wuxuu ka mid yahay furayaasha lagu garan karo ciidanimada marka in la qaato qorina la qaato micno ma samaynayso haddaan qofku uusan fahmin waxa uu tuntaha u gashaday iyo waxa qoriga uu qaatay hadduusan fahmin wax micnaha ku fadhida lama arko waxaana furo ah inuu fahmo waxa way tababarka wey in tababar la siiyo lagu wacyigeliyo oo loo sheego inuu qofkaasi dharka iyo hubka iyo mas-uuliyadda u qaadayo in la baro uu ogaado weeyaan taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa si rasmi ah u soo xiray tababarkii ururka 89aad ee saadka la siiyay